بسم الله الرحمن الرحيم. agaasima ku-xigeenka urur goboleedka IGAD ahna madaxweynihii hore ee Hirshabeelle mas'uuliyiinta kala duwan ee halka fadhida ee Soomaalida iyo ajnabiga isugu jirta dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan marka hore rabaa inaan halka tacsi uga diro usbuucyadii u dambeeyay dad waaweyn oo nabadda iyo wanaag ka shaqeeya ayaa Soomaaliya geeriyooday inkastoo dad badan geeriyoodeen. marka hore waxaan rabaa inaan tacsi u diro ugaas Cabdullaahi Farcadde oo ahaa ugaas Soomaaliyeed nabadda iyo dawlad dhiskana qayb weyn ku lahaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto eheladiisiina samir iyo iimaan dhammaanteen Allah naga siiyo. waxaa sidoo kale habeen hore dalka Turkiga ku geeriyooday Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Baardheere oo runtii ahaa isaga iyo aabihiis iyo culimada reer Baardheerba dad ku suntanaa fidinta cilmiga iyo ka shaqaynta nabadda dhammaan geyga Soomaaliyeed oo aan rajaynayn isna Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naxariisto annagana sabir iyo iimaan uu naga siiyo. inta markaan ka gudbo waxaan bogaadinayaa madashan maanta halka la isugu yimid ee ka hadlaysa nabadda oo ku suntan 21 Sebtembar oo ah maalinta nabadda adduunka. waxaan rajaynayaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka barino in uu dhammaan geyigeena nabad ka dhigo iyo caalamka guud ahaanba. waxaan kaloo si gaar ah u rajaynayaa mowduucyada hadda looga hadli doono 3 beri ee ku saabsan warbaahinta iyo nabadda inay noqon doonto isweydaarsi iyo wada hadal ka dhasha wax tara nabadda iyo xasiloonida. nabadda iyo xasiloonida dadka Soomaaliyeed baahida ay u qabaan laga sheekayn maayo. caalamku 35 sano u dambeeyay laga soo bilaabo 90kii waxaa hoos u dhacayay dagaaladii iyo xasaradihii adduunka ee dagaalkii qaboobaa uu sababay. muddadaas waa muddada ugu badan ee caalamku horumarka aadka u ballaaran uu gaaray ee dhinac walba ah, hadday tahay dhinac aqooneed iyo hadday tahay dhinac icmaar iyo horumar. 35 sano Soomaaliya nasiib darro ma aysan helin fursadda caalamka intiisa badan ay heleen. waxay ku jirtay qalalaasa, waxay ku jirtay nabad la'aan, waxay ku jirtay khilaafaad ragaadiyay noloshooda. nasiib wanaag iyo nasiib darro mid ay tahay waxaan haddana weli dhex joognaa iyadoo caalamkii mar labaad uu ka muuqdo hifafaale deganaansho la'aan iyo amni darro ah ee guud ahaan dalka adduunka gaar ahaan geeska Afrika. iyadoo weli Soomaaliya nugul, iyadoo weli Soomaaliya aysan soo kaban, iyadoo weli Soomaaliya bulsho ahaan iyo dawlad ahaan ba aysan u diyaarsanayn xajmiga duruufahaas jira inay wajahdo. runtii dadka halka fadhiya waa dadkii ku suntanaa inay nabadda ka shaqeeyaan muddo dheerna ka soo shaqaynayay. wajiyo badan iyo magacyo badan ayaan ku arkay dadka ka hadli doona halka. runtii waa uga mahadcelinayaa BDRC inay dadka intan la isu keento waqti ku habboon iyo marxalad ku habboon. arrintaas waxay u baahan tahay in looga mari dhaliyo fursaddaas la haysto iyo sida ay tahay. waa fursad aad u fiican dad Soomaaliyeed oo nabadda ku suntan inay isu yimaadaan oo aqoon lagu tuhumayo oo ay maskaxda toojiyaan oo xaqiiqada ay u daadegaan. colaadda Soomaalida haysato waxaa laga yaabaa guudka inay ka muuqato loolan qabaa'il ama siyaasiyiin ku tartamaya xukun, laakiin way ka guda weynta. hadday degi waayaan waxaa la yidhi ama waxbaa siyaado kuwa ama waxbaa ka dhiman. loolanka Soomaaliya Soomaali keliya hadday tahay waa hore heshiin lahayd. dhaqankeeda waa dhaqan nabadeed, laakiin waxaa ku jira loolanka guud ee geeska
iyo midka caalamka ka socda ayaa ganafka ku sii dhufanaya runtii waxay u baahannahay haddii arrintii Ruwaanda laga sheegay ee hadalka kaliftay ee intaasoo boqol oo qof dishay maanta waa ka soo doogeen waa ka horumarsan yihiin bal waxay noqdeen Ruwaanda dalalka maanta lagu daydo maxaa u diiday Soomaaliya in wixii dhacay sabab kasta ha keenaane in laga gudbo waxay u baahan tahay ma filayo garasho la'aan inay maqan tahay mana filayo aqoon darro inay jirto Soomaalida waxay haysataa aqoon ku filan waxayna haysataa waayo aragnimo ku filan waxa uu dhiman tii alla ka sokow iraadadii arrintaas fulin lahayd oo hore u socodsiin lahayd ma rabo mawduuciinu inuu intuu inaga baaho aad meel kale aadaan mawduuciinu waa meediyaha iyo dowrka uu ku leeyahay laakiin meediyaha ruuxadiisa haddaanan wacyigiisa kor loo qaadin oo lagu darin wadada ay u adeegsanayaan warbaahinta siday nabad u dhalin lahaayeen dawladna u dhisi lahaayeen in farsamada iyo xirfadda looga warramaa waxba ku soo kordhin mayso ma filaayo dhallinyaradeennu hadda xirfad la'aan inay hayso mana filaayo aqoon darro inay hayso laakiin waxay u baahan yihiin aragti dowrka ay cayaarayaan si fiican ugu bayaanisa runtii iyaga oo aan hubo inaysan ku barbaarin jawigii loo baahnaa iyaga oo aqoonta keliya maahana helin fursaddii ay ku practice garayn lahaayeen haddana shaqada ay qabteen ay bulshada u hayaan waa shaqo tilmaaman oo muuqata inay isbeddel weyn ay keeneen dadaal badan bay isfarayaan khaladaad buu ka dhacayaa laakiin waxaa muuqata inay horumar badan ka gaareen qaybahood dabcan hadba qayb cusub oo iska soo gelaysa way jirtaa maadaama uu yahay meel furan social mediahu laakiin dadka ruuxadiisa garaadkiisa baa soo kordhayo wararka cidda ay ka qaadanayaan hadda way kala barteen waana rajaynayaa in la helo dhalinyaro ku suntan iyo warbaahin ku suntan inay tahay dhexdhexaad oo si togan u eegi doonta mawaadiicda ku aadan dawlad dhiskeena dabcan muddadii hadda labadii bilood u dambeysay waxaan ku maqnaa gaalkacyo oo ah meelaha u nugul inay colaaduhu ka fufaan runtii waa magaalada keliya ee hadda Soomaaliya laba maamul ay ka kala jiraan marka la fiiriyo magaalooyinka Soomaaliya nasiibkaas ay yeelatay hadba sidii loo adeegsado ayay noqon doontaa muddadii u dambeysay dadka reer gaalkacyo iyo maamulka Puntland iyo Galmudug waxay waqti geliyeen inay sida togan oo positive-ka uga faa'iideystaan inay gaalkacyo noqoto xudun Soomaaliya u dhaxaysa oo horumar la taaban kara gaarta dabcan cadow badan oo mar walba carqaladaynaya jira laakiin dadkeeda iyo labada maamulba foojignaan badan baa ka muuqata khatar aan ka baqnay in ay sababto inuu dagaalo si u qorshaysnaa ay fidaan ayaa runtii muddadii u dambeysay halkaas laga waday waxaan uga mahadcelinayaa shacabka iyo maamulka Galmudug dowrka ay ka qaateen sidii loo xakamayn lahaa loona heli lahaa in la bilaabo wada hadal toos ah beelihii halkaas xurguftu ka gaartay waxaan rajaynayaa in aan ka rajaynayno in ay noqoto xurgufahaas yararka oo dhacay inay noqdaan kuwo laga gudbo oo wanaagga iyo horumar ka socda magaaladaas iyo hareeraheeda iyo gobolka Mudug guud ahaanba oo noqdo mid waxtar noqdo runtii waan ku faraxsanahay inaan shirkan inagala soo qayb galo waxaan u rajaynayaa inay ka soo baxaan muddada la wada joogo waxyaabo la taaban karo oo wax ku kordhiya nabadda iyo dawlad dhiska dabcan mawaadiicda hadda meesha ku qoran anoon rajaynayn inaad ka baxdaan laakiin waxaan ku kordhin lahaa aqoon-yahankan ka kala yimid Soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo qaaradaha kala duwan inay fursad kaleeto ku dhex abuuraan shirkan oo uga doodaan bal xal u helidda xaaladda Soomaaliya nabad dhalinta Soomaaliya waxaa ku gadaaman in la helo xal siyaasadeed haddaan xal siyaasadeed la helin nabaddu mar walba way nuglaanaysaa cid baana si uga faa'iideysanaysa markaas
ay dhici karto inay dana siyaasadeed ka leedahay waan rajaynayaa arrintaasna haddaad fursad u heshaan inaad dabcan iyadoo la og yahay laakiin waxaan u baahannahay codkiinna inuu aad ku biirisaan nidaamka dawlad dhiska ah siduusan majarihiisa uga bixi lahayn oo loogu hayn lahaa meesha uu hadda joogo oo aan fursad loo siin lahayn inaan fursad loo siin cid doonaysa dalka Soomaaliya inuu mar labaad kala daato arrintaas mas'uuliyaddeeda inaan wada qaadnaa loo baahan yahay gacmo badan baa ku dhex jira duruufo badan baa ishirdiyaya dana badan baa isku dhex yaacsan waxaan rajaynayaa dadkii ku habboonaa baa halka fadhiya Soomaaliya yaan fursad loo siin inay mar labaad khadka intay ka baxdo dib hadda dawlad dhis baa laga hadlayaa dib inaan loo yegleelin shir dib u heshiisiineed oo ballaaran oo Soomaaliya haddana hal isu kala looran meesha ay maanta joogto inaan dib carto ugu noqon iyo shirarkii la mid ahaa laakiin meelaha ay ka liicaysa in laga toosiyo inaad ku darsataan xisaabta waxaan sidoo kale halka fursaddan uga faa'iideysanayaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kaleeto ee Soomaaliya isteediyada madaxda ka ah iyo cid kasta oo mas'uul ah in ay ilaaliso waxa dadku heshiiska ku yahay inay ilaaliso waxa dadka heshiiska u yahay inay dadka kala qayb qaadato xal u helidda dalka oo la isku koobin arrintaas runtii waxay la tahay aqoonyahanka waa loo baahan yahay codkooda waxa loo baahan yahay aragtida dadka in wax laga bedelo waxaan sidoo kale ka codsanayaa meediyaha inuu u diyaar garoobo shirkan kadib inuu noqdo meediya isu bedela nabadoon iyo dawlad dhis sida ku suntan ciwaanka halka warqadaha ka soo baxa iyo fariimihiinu inay u noqdaan tool ay u adeegsadaan ama wasiilo ay u adeegsadaan sidii ay dowrkaas u qaadan lahaayeen waxaan u rajaynayaa shirkan guud ahaan guul waxaan BDRC u rajaynayaa shirkan ay qabatay inay ka soo baxaan miro la taaban karo oo mustaqbalka wax tara waxaan uga mahad celinayaa intii soo qaban qaabisay iyo intii ka soo ajiibtay waxaan rajaynayaa dhammaanteen in aan waqti talaabada u soo qaadnay iyo kelmadda aan ku darnay inay noqoto wax tar u noqdo bulshadeenna iyo deegaanadeenna khataraha jirana ka xijaaba waxaan sidoo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryeynaa in uu nabad waarta iyo xasilooni iyo deganaansho uu ummadeena siiyo waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh